kulanti wanaagsan daawade ku soo dhawow Abraham Show. Muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xusuusta dagaalkii Biafra ee Nigeria oo dad badan ay doorbidayaan in gebi ahaanba la iloobo. Intaan warbixinteena u guda galin daawadayaal waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysaan dhowr su'aalood oo la xiriira muxuu yahay dagaalkii Biafra, halkee ayuu ka dhacay iyo sidoo kale sanadka uu dhacay. Laakiin dhammaan su'aalaha isweydiinaysa jawaabahooda waxaan idinkugu soo gudbin doonaa warbixinta kooban ee dagaalkan aynu kaga hadlayno. haddii ay tahay daawade markaagii ugu horeysay aad aragto channelkan, fadlan subscribe dhe, sidoo kale taabo gambaleelka ku muuqda si aad mar walba ula socoto macluumaadkan halkan ku baahino. Geerida in ka badan 1 milyan oo qof oo ku dhimatay dagaalkii sokeeye ee Nigeria oo dhamaaday 50 sano ka hor waxay cambaar ama barmadow ay ku tahay taariikhda wadankaasi. Marka si guud looga hadlayo dadka reer Nigeria, dagaalkaas oo ka qarxay abuurista dawladii Biafra waxay u arkaan nasiib daro soo martay wadanka oo ku haboon in la iska iloobo. Laakiin dadka ka soo jeeda qowmiyadda Igbo oo u dagaalamay in ay maamulka la wareegaan waxay dhacdadaas u tahay mid lagu aqoonsado. Sanadkii 1967 markii ay dhaceen laba afgembiyo qalalaasi sababay in qiyaastii 1 milyan oo qowmiyadda Igbo ay ku laabtaan koonfurta bari ee Nigeria, Jamhuuriyadda Biafra waxay ku dhawaaqday gooni u goosad iyadoo uu hogaaminayay 33 jir militariga ka tirsanaa oo lagu magacaabi jiray Emeka Odumegwu Ojukwu. Dawladda Nigeria ayaa durba ku dhawaaqday dagaal kadib 30 bilood oo dagaalka socdayna Biafra way isdhiibtay 15kii bishii January ee sanadkii 1970 ayuu dagaalkii u istaagay si rasmi ah. Go'aankii dawladda soo saartay ee ahaa inaysan jirin cid dagaalkaas ku guuleysatay ama ku guuldareysatay ayaa laga yaabaa inuu dad badan ilowsiiyay xusuusta masiibadaas. Laakiin dadka reer Nigeria ee asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Igbo ayaa ku soo koray iyagoo sheekooyinka noocaas ka dhageysanaya dadkii noolaa xilligii uu dagaalka socday. 3 ka mid ah dadkii ka soo qayb qaatay ayaa jiilalka xigay la wadaagayay xusuustooda. Haddaba daawade waxaan soo qaadan doonaa dhowr qof oo dagaalkaas xilligii uu dhacayay joogay, sidoo kalena qaarkood ka tirsanaa askartii dagaalkaasi ka qayb qaatay. Aynu ku horeyno Christopher Ejika Ago. Ninkan xilligii uu dagaalkaas qarxayay wuxuu markaas ka qalin jebiyay iskuul oo ka dhiganayay naxwaha Ingiriiska, wuxuuna bilaabay tababar dhinaca caafimaadka xoolaha oo uu ku qaadanayay jaamacadda Niger UNN si uu gacan yaro ugu noqdo dhakhtar xoolaha daweeya. Inta badan ardaydii uu yaqaanay waxay ku biireen dagaalka. Isaga laftiisa wuxuu ka mid noqday ciidamadii xukuumadda Biafra kuwaas oo uu jaajuus u noqday. Ciidamada dawladda Nigeria ee la dagaalamay waxay ahaayeen askar tababar fiican leh, annagana 2 maalmood ee tababarna loo sameeyay. Dagaalka ayaana lagu dhex tuuray ayuu yiri Christopher Ejika Ago. Waxaan u maleynay buu yiri inaan nahay dad indhasarcaad wax ku sameeya, ayuu hadalkiisa sidoo kale raaciyay. Haddana waa 76 sano jir. Bishii January ee sanadkii 1966 qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee militariga Nigeria oo badankood ay asal ahaan ka soo jeedeen qowmiyadda Igbo ayaa dilay siyaasiyiin waaweyn intii lagu guda jiray afgembiga ka dhacay wadanka ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. dadka la qaarajiyay waxaa ka mid ahaa Ahmadu Bello oo ahaa hogaamiye si weyn looga yaqaanay oo ka soo jeeda waqooyiga Nigeria. Arrintaas waxay sababtay xasuuq bilo socday oo loo geysanayay dadka reer Igbo ee ku noolaa dhinaca waqooyiga. 10,000 oo ruux ayaa la dilay, halka qiyaastii 1 milyan oo kalena ay u carareen gobolka markaas loo yaqaanay Bariga. Dhacdooyinkan waxay horseedeen in dadka ka soo jeeda qowmiyadda Igbo ay go'aansadaan gooni u goosad. Sanadkii ugu horeeyay ee dagaalka dawladda Nigeria waxay qabsatay magaalo xeebeedka Port Harcourt waxayna hirgelisay go'aamin adeegyada cuntada looga jaray maamulka Biafra. Mr. Ago wuxuu xusuustaa in saameynta ka dhalatay cunaqabatayntaas ay ciidamada Biafra ku qasabtay inay jiirka cunaan. Wuxuu sidoo kale xusuustaa in sanadkii ugu dambeeyay ee dagaalka ay ciidankii ku jiray marba meel u guurayeen iyagoo ka baxsanaya ciidamada Nigeria ee ka adkaanayay. Mar uu dagaalka bartamaha marayay, dadka reer Biafra waxay gaarayeen guulo cajiib ah kuwaasoo xitaa siinayay rajo ah inaan la sii dagaalami karno dawladda Nigeria ilaa intaan caawimaad dibadda ka helayno, ayuu yiri. Laakiin dabayaaqadii sanadkii 1969
ayay rajadii oo dhan soo idlaatay. haddaba aynu waxay idinka taataabto dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dagaalkaasi Biafra. bishii January sanadkii 1966 dowladda Nigeria waxaa lagu afgambiyay waxa markaas loo arkayay inqilaabkii Igbo kaasi hogaaminayeen saraakiil militariga ka tirsanaa oo heer hoose ah. bishii January sanadkii 1966 laba xidigle Colonel Odomegwu Ojogwu ayaa loo magacaabay gobernatore military oo xukuma gobolka Bariga. bishii July sanadkii 1966 waxaa dhacay inqilaab labaad oo uu abaabulay Murtala Mohammed. laba xidigle Colonel Yakubu Gowon ayaana noqday madaxweyne markaas afgambigaas kadib la doortay. inta u dhaxaysay bilihii June ilaa iyo October ee sanadkii 1966 qalalaase ka dhacay dhinaca waqooyi ee dalkaasi Nigeria ayaa lagu bartilmaameedsanayay dadka ka soo jeeda qowmiyadda Igbo. dad badan ayaana laga dilay halka ilaa 1 milyan oo kalena lagu qasbay inay u barkacaan koonfurta bari ee dalka Nigeria. bishii May sanadkii 1967 Ojogwu ayaa ku dhawaaqay madax banaanida jamhuuriyadda Biafra. bishii July isla sanadkaas 1967 dagaalkii ayaa si rasmi ah u bilowday. October bishii ahayd 1967 waxaa la wareegay caasimadda Biafra ee Enugu. bishii May sanadkii 1968 hal sano kadib dowladda Nigeria waxay qabsatay magaalada saliidda qaniga kuwa ee Port Harcourt. bishii May sanadkii 1969 Unahuwa oo ahayd caasimadii cusbayd ee jamhuuriyadda Biafra ay la wareegeen ciidamadii dowladda Nigeria. bishii January sanadkii 1970 Ojogwu ayaa ka cararay Nigeria. sidoo kale isla bishaasi January sanadka 1970 Biafra ayaa isdhiibtay. Masar Ago markii dambe wuu isaga baxay ciidanka isagoo bilaabay inuu raadiyo qoyskiisa. wuxuu sheegay in saaxiibadiis iyo ardaydii ay isku jaamacad ahaayeen badankood lagu dilay dagaalka. laakiin qoyskiisa waxay aad ugu farxeen aragtidiisii maadaama ay u maleynayeen inuu ku dhintay dagaalka. waxaa kale oo aad ugu farxeen inuu u yimid isagoo raashin wada. dadkii taageersanaa jamhuuriyadda Biafra ee rasaas iyo bambooyinka dileen waxaa ka badnaa kuwii u geeriyooday gaajo darteed. ninka labaad Wangua Orogwo waa saynisyahan. ninkan wuxuu maadada fiisikiska uu ka dhiganayay jaamacadda UNN markii uu dagaalka sokeeye u bilaabanayay. 30 bilood ee uu dagaal ku socday wuxuu madax u ahaa koox saynisyahana oo ka soo jeeda qowmiyadda Igbo kuwaasoo sameynayay cilmi baaris iyo wax soo saar la xiriira dhinaca hubka. hawshoodu waxay ahayd inay dhinaca farsamada hubka ka caawiyaan ciidamada Biafra oo hubka ku yaraa. anaga la'aanteen dagaalku wuxuu socon lahaa 30 saacadood oo kaliya, ayuu yiri Felix oo hadda 85 jir ah. markii uu dagaalka bilowday ma jirin wax huba oo ay reer Biafra haysteen ama baqaar ugu jiray. waxay haysteen mindiyo iyo baangado kaliya. qori ma jirin, bamba ma jirin, waxba ma jirin, ayuu yiri. caqabadihii ugu waaweynaa ee dadkii reer Biafra ay wajaheen waxaa ka mid ahaa dhaqaale dari maadaama lacagta ay isticmaali jireen ay noqotay mid aan waxba goynin. qaar badan oo ka mid ah dadkii ka soo jeeday qowmiyadda Igbo waxay ilaa hadda ka cawdaan in lagu gacan bidixeeyo siyaasadda dalka Nigeria. tan iyo markii dagaalkii sokeeye dhamaaday weli qof reer Igbo madaxweyne kama noqon wadanka Nigeria. qofka saddexaad waa Edna oo maclimad ahayd. haweeneydan waxay maadooyinka Ingiriiska iyo Faransiiska ka dhigi jirtay dugsi sare oo ku yaalay magaalada Port Harcourt ee koonfurta Nigeria, halkaas uu dagaalka sokeeye uu ka bilowday. halka ay UK ka taageersanayd dowladda Nigeria, Faransiisku wuxuu si weyn u garab taagnaa jamhuuriyaddii la magac baxday Biafra. laakiin dadka reer Biafra waxay badanaa ku hadli jireen luqadda Ingiriiska, sidaas awgeedna waxaa loo baahnaa dad af Faransiiska yaqaano oo turjumaano u noqda markastoo ay saraakiisha Faransiiska soo booqdaan Masar Ojogwu. Mrs. Edna waxay ku biirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Biafra. waxay si toos ah ula shaqeynaysay Ojogwu. wuxuu ahaa waqti cajiib ah, qof walba waxaa lagu qasbayay inuu dadkiisa u keeno ciidamada ay tiri Edna oo hadda 82 sano jir ah. waxay aad ula dhacsanayd inay si toos ah ula shaqeyso hogaamiyihii Biafra. Ojogwu qudhiisa markii uu wadanka ka cararay waxa uu dibadda ku noolaa muddo 13 sano kadib markii ay si rasmi ah cafis ugu fidisay dowladda Nigeria.
wuxuu waddanka dib ugu laabtay sanadkii 1982. dadweyne fara badan ayaa buux u dhaafiyey magaalada uu ka soo jeeday ee Anabra si ay u soo dhaweeyaan. wuxuu geeriyooday bishii November ee sanadkii 2011 waxaan loo sameeyey aas military oo dhammaystiran kaasoo uu ka qayb galay madaxweynihii Nigeria ee xilligaas Goodluck Jonathan oo ay wehelinayeen hogaamiyaal kale oo Afrikaan ah. 50 sano kadib dagaalkii Biafra, Nigeria waxay weli ku dhibaatoonaysaa sidii ay u ilaalin lahayd midnimada, taasoo aan quseynin Igbo oo keliya balse xitaa kooxo kale ay saameynayaan. waxaa laga yaabaa in sababtan ay tahay wax badanaa loo soo hadal qaadi la'yahay dagaalkaasi. dowladda waxba kama faa'iideyso inay dadka reer Nigeria xusuusiso arrintii xilligaas dhacday oo mar kalena la isku dayi karo. daawade waxaan intaa ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan kooban aynu kaga hadlaynay xusuustii dagaalkii Biafra ee Nigeria ka dhacay 50 sano ka hor. waxaan filayaa in su'aalo badan oo isweydiinayseen oo ku saabsanaa dagaalkan iyo qaabkii uu dhacay jawaabahooda aad ka dhex hesheen warbixintan halkan aynu idinkugu soo gudbinay. waxaan daawada mar kale aan ku xusuusinayaa inaadan iloobin inaad subscribe dhahdo channelkeena, sidoo kalena aad taabato gambaleelka ku muuqda si aad mar walba u noqoto qofka ugu horeeya ee hela macluumaadkan halkan ku soo bandhigno. mahadsanidin.